kulankan oo soo qaban qaabiyey Baanka Dhexe ee Somaliland oo lagu gorfeynayay caqabadaha ka jira lacagaha ganacsi ee dalka dibadiisa u baxa iyadoona kulankaasi ay ka soo qayb galeen wasiirada wasaaradaha maaliyadda maalgashiga gudoomiyaha rugta ganacsiga mas'uuliyiinta sarsare ee Baanka Dhexe gudoomiyaasha baananka gaarka loo leeyahay shirkadda DP World iyo ururada xawaaladaha dalka iyo hay'adaha maaliyadeed ee Somaliland kulanka lagaga hadlay habka ay maraan lacagaha dalka ka dhoofa iyo kuwa dalka soo gala ayaa waxa sidoo kale lagu soo bandhigay daraasad muujinaysa hanaanka looga gudbi karo caqabadaha ku gadaama lacagaha dalka dibadiisa loo diro ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay Sacad Cali Shir wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda maalgashiga Maxamed Axmed Cawada iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland Jamaal Caydiid Ibraahin Central Baanka iyo baanankeena kala baynay u dhaqmaan sidii baanan ka diiwaan gashan caalamkiisa kale oo wax kasto bangi laga rabo in la naga helo sin conference abur kaasi inagu xiran cid kale naga maxna qodobka labaad waxa weeye in baanankeenu iminkaba way leeyihiin laakiin ay xoojiyaan partnerships ay raadsadaan ka saddexaadna waxa weeye inaynu soo jiidano inay waddanka keeno baanan international oo waliba islaamika qodobka afraadna waxa weeye inaynu lobby garayno dawladaha iyo baananka taas waa xilka ay dawladdu ay leedahay waxa la inaga rabaa kow bal inaynu inoo fikirno innovation cusub oo dunida aynu kaga dhaadhicin karayno iyo ganacsatada haddaynu abuurno baahi ganacsatada iyo dadkeena ku hawlan lacagaha iyo waxa baahi haddaynu abuurno dunida wala aqbalaya waxaynu keenno taayinaynu mar walba inagoo ixtiraamayna shuruucda adduunka iyo xeerarka yaala haddana aynu wax la nimaadno marka ganacsiga iyo lacagta saynu kala xawileyna waynu ku fiicannahay magac badan baynu ku helay dhibaatooyin kastoo jira haddaan xagga maalgashiga usoo noqdo oon ka hadlo inta badan saynu soo jiidan lahayn foreign direct investment challenge buu ku yahay su'aalaha ugu badan la weydiiyaa lacagaha halkee la mariyaa bangiyada halkee la marinayaa oo challenge jira in wax laga qabtaana waynu soo kaashanaynaa maadaama inaan ictiraaf haysan inaynu cid la macaamilo cidda lala macaamilaya marka labada arrimood qoladan baanankeed private-ka ah oo dadku imika privatization ka jecel yihiin oo ay haddana aanay ka maarmeyn inay dawladda dabada ku hayaan Cali Ibraahin Jaamac Baqdaadi gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Somaliland oo isaguna dhinaca kale madasha ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda uu dalka u leeyahay shirkani waddanka door badan oo soo galaa mid badan oo ka baxa hadda data doonaysana wada siin karaa isticmaalka shirkani mid walba intuu ku leeyahay aw ogaataan taas horta waa data u baahan tihiin oo waxaanu ka hadlaynaa waxa ahayd remittance marka ilaa aynu daatadii helo actualka ahayd dee go'aan ma gaari karo ama still fiican ma samayn karo laakiin waxaanu ka bixi doonaa inagu insha Allah technical committee waynu qabsan doonaa baananka iyo ganacsatada waxaanu maanta ka hadlaynaa idinka ka timi oo ganacsatada tiri waxaana ma diri karo oo waxay barayaan South Africa iyo Uganda marka dee kulli committee waynu samayn doonaa waxaana waynu ka hadli doonaa Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa Abdirahmaan Abdullaahi Fantastic Eryal TV Hargeysa